asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada kanaalkeena Tamer Recap. filimku wuxuu ku bilaabmayaa Chan Woo oo ku mashquulsan ciyaarista video gameska ilaa hal mar uu argagaxay marka qof walba fariinta soo qoray fariimahaas oo ah halkan oonad ka baxso. marka hore waxa uu maleynayay dowladtus ay u sameynayaan taageerayaashiisu, laakiin fariin degdeg ayaa uga soo dhacday hay'adda masiibooyinka ee qaranka. isla markaa kadib wuxuu maqlayaa shil weyn oo ka socda magaalada. qaybta balkoonka ayuu soo istaagaya, aad ayuu uga naxayaa markuu arka magaalada uu qasweyni ka socdo. dadku dhismayaasha ayay ku degdegayeen halka gawaadhidu ay isku dhacayeen, waxaana arkaya biniaadam qaninaya biniaadam kale. John Woo aad ayuu uga naxaya arrintaasi isagoo fahmi laha waxa meesha ka socda. haweeney ayaa gabadheeda u timaaday, laakiin markii hooyadaas isku duubtay inanteeda, gabadhii ayaa bilowday inay hooyadeed qaniinto sida xayawaan duurjoog ah oo kale. John Woo waxaana u dhan si toosa ayuu daawanayay isagoo garan la waxa uu sameeyo. si lama filaan albaabka ayaa lagu soo qaraacaya. markuu hubiyeyna cidna dibadda ma joogin, aayar ayuu albaabka u furay. saaxiibkiisii deriska ayaana markiiba soo galay oo xidhay albaabka. John Woo aad ayuu uga nacay deriskiisa maadaama uu hadda dhig ka moodo, halka saaxiibkii uu diiday inuu baxo. taa bedelkeedana uu ka dalbaday inuu mushqusha galo. isagoo aan ikhtiyaar kale haysan ayuu si lama falaana tv-ga u daaray. waxaana ogaaday in fayrastaas magaalada ka dilaacay, dadkuna bahale saambiil layidhaaha isku bedelayaan, qof kasta oo la qaniinaan inuu si fudud ku qaadayo. John wuu argagaxay isagoo dareemay in saaxiibkiisii dhiig lahaa. hub ayuu diyaarsaday. markii uu soo baxayna wuxuu ka dalbaday inuu dibadda uga baxo, isagoo arkay in indhihiisu si aayar ay dhiig isugu bedelayaan. dabadeedna wuxuu bilaabay inuu dhinaca albaabka u riixo, isagoon weliba qaab naxdin la samaynaya, ilaa uu ugu dambayn bilaabay inuu isbedelo. markiiba waa uu riixay oo dibadda isaga tuuray. isla markiiba soombuuka weyn ayaa soo wararay saaxiibkii oo meesha ku cunay. waxaanoo dhan wuu daawanayay isagoo weliba cabsanaya. si degdeg ah iyo qaybta fariijka u soo riixay, wuxuuna bilaabay inuu albaabka ku adkeeyo. isla mar ahaantaana waalidiintii ayuu isku dayay inuu la xidhiidho si uu ogaado inay faacan yihiin iyo in kale, laakiin qofna uma jawaabin. hooyadii ayaa fariin u soo dirtay iyadoo u sheegaysa inay hadda nabad qabto, waxayna ka dalbanaysaa inuu guriga ku jiro ilaa ay ka imaanayaan qolyaha gargaarku. habeennimadii ayaa la gaadhay. John Woo ayaana xisaabinaya cuntada yar oo hadhay. cuntadii ayuuna qaybo yar u kala qaybiyey si uu maalmo badan u cuno, waana uu iska seexday. maalintii xigta muuqaalo online ayuu arkay dadka oo markaasi caawimaad dalbanaya. isna wuxuu go'aansaday inuu muuqaal uu dalbanaya in meesha laga badbaadiyo uu duubo. wax yar kadib wuxuu arkay wiil si toos ah layf ugu jira oo si lama filaana u dhacay. kadib diyaaradda aan duuliyaha lahayn ayuu kiciyey si wax fikradaha uu uga helo. telefoonkiisa ayuuna ku xidhay. xaaladda dibadda aad ayay u xun tahay, isagoo arkay in dhammaan deriskiisa oo dhan inay saambi noqdeen, mana jira hal qof oo ka badbaaday. tani rajadiisa ayay hoos u dhigtay, wuxuuna go'aansaday inuu naftiisa ku mashquuliyo ciyaarista video gameska. intii uu ciyaarayay interfaceka ayaa xumaaday, taasoo u muuqatay in saambiyadu xataa internetka khalkhaliyeen. maadaama uusan hadda jirin wax kale oo ku mashquulo, waxa uu bilaabay inuu iska seexdo. labadiiyo badhkii habeenimo ayuu ku toosay sawaxan halka hoose ka imanaya. isagoo wereersan ayuu isku dayay inuu hubiyo, waana gabadh booliisa oo dabaqa hoose joogta. gabadhaasi hub ayay haysatay oo ay bilowday inay midmid u taagato saambiyadii, laakiin intii ay rasaasta cabaynaysay ayay dhowr soombiye xaggeeda u soo ordeen oo sidii ayay ku qabteen. isaguna waxaanoo dhan toos ayuu daawanayay. haweeneydaasi quus ayay taagnayd oo ay rabtay inay isdisho, laakiin saambiyada ayaa ka qabtay oo u jiitay qaybta hoose ee dhismaha. waxaanoo dhan waa uu daawanayay ilaa markii dambe uu soo baxay si uu saambiyada ugu qeliyo oo uga mashquuliyo gabadha, balse aad ayuu uga soo daahay. aad ayuuna ugu guuldaraystay inuu badbaadiyo gabadhaasi. qayladiisa waxay soo jeedatay kuwii agagaarka dhismihiisa ka dhowaa, kuwaasoo bilaabay inay albaabka soo riixaan. soombiyo weyn ayaa hadda soo galay. si degdega ayuu bilaabay inuu albaabka u difaaco oo uu tallaagada u riixo, ma uusan siin fursad uu gudaha ugu soo galo. John Woo waxa uu xaqiiqsaday inuu saambiyigan caqli lahayn. markiiba daaqada ayuu istaagay, halka soombiyiga uu si xawlaha ugu soo orday dhanka daaqada ayuu sidaa uga tuuray. isla markiiba waxa uu bilaabay inuu albaabka adkeeyo si uusan mid dambe u soo gelin. waa uu quustay, waxaana uu bilaabay inuu cabitaan iyo baasta iska cuno maadaama uu gaajaysnaa. mar dambe uu daalayna waa uu iska seexday isagoo niyadjab la oynaya. rafaad dheer kadib mar dambe ayuu toosay. fariin cad ayuu hooyadii ka helay, waxauna isku dayay inuu furo, laakiin khadka ayaa aad u daciif ahaa. ilaa mar dambe uu daaqada la istaagay si uu hooyadii ula xidhiidho, wuxuuna ogaaday in hooyadii dhinteen. aad ayuu uga niyad jabay, wax walba ayuuna burburiyey. ma uusan rabin inuu hadda sii noolaado. dibadda ayuu u soo baxay isagoo bilaabay inuu sombiyada si ula kaca mid ugula dagaalamo. kuwo kale oo badan ayaa soo ururay, wuxuuna diyaar u ahaa inuu dhinto, laakiinse wuu u dulqaadan waayey. kuwa aad u tiro badan ayaana meesha yimaaday, waxauna bilaabay inuu iska qariyo. dhinac kale oo jihada kale ah ayayna u ordeen. markii uu soo baxay gadaashiisa, mid ayaa uu ku arkay oo uu dareemay inuu indhoole yahay. kiina sidii ayuu ku dhaafay oo uu qolkiisa u yimaaday. albaabka shanqadhiisa ayay maqleen oo ay dhinaca albaabka kusoo xeemeen. cabaar kadib markii ay baxeen, habeenkii waa uu iska quustay oo uu bilaabay inuu iska duubo muuqaalkiisii ugu dambeeyey, isagoo raba inuu dunida macasalaameeyo. laakiin markii uu ku dhow yahay inuu isdilo, markiiba nalcas ayaa lagu qabtay, taasoo muujinaysa in qof kale uu nool yahay. ilaa uu markii dambe marada uu sidii iskaga furay. inan ayaana iftiinka cad u muujinaysay, waana gabadh aad qurux badan oo dhismaha kasoo horjeeda degan. waxayna ku tilmaamtay
inuu doqon yahay halka uu ka xanaaqi lahaa farxad bad ayuu dareemay. si xamaasad leh ayuu ugu gacan haadiyey gabadhii oo adeegsanaysay ishaarooyinka gacanta ayaa u sheegtay inay beritoole 7 kulmayaan. kadib qof walba qolkiisa ayuu ku laabtay. inantaasi faas ayay haysatay oo isku diyaarsay in haddii lasoo weeraro ay iska difaacdo. biyo badan oo ay haysataa may jirin, gurigeedana dabino badan ayaa ku xidhnaa. maalintii xigtay labadoodaba labada magac ayay isweydaarsadeen. gabadha waxaa la yidhaahdaa Kim. Chan Woo cunto la-aan ayaa haysay, calooshiisa ayuu xanuun daran ka dareemay. Kim ayaa xaalada dareensay oo go'aansatay inay cunto u dirto, balse mid kamida kubadaha oo ay isaga u waday ayaa dhulka si toosa ugu dhacay. Chan Woo ayaa diyaaradda isticmaalay, isla markiiba iyada ayuu diyaaradda aan duuliyaha lahayn u geeyey. iyaduna cuntadii ayay ugu soo riday. aad ayuu ugu mahad celiyey. si lama filaan ah mid kamida saambiyada ayaa kubadii yarayd ku arkay dhulka oo uu soo jiitay. isla markiiba wuxuu u garwaaqsaday in kubaddani meel kale ku xidhan tahay oo uu isku dayay inuu dhismaha ku fuulo. Chan Woo ayaa dhala qabsaday si uu soombuuga uga mashquuliyo, laakiin bahalkaasi ma mashquulin. waxa uu ku dhawaa in bahalkaasi uu gudaha guriga Kim uu galo. sidoo kale Kim waxay isku dayeysay intii karankeeda inay isbadbaadiso, ilaa markii dambe inantii ay faash ku dhufatay. sidii ayuuna dhulka ugu dhacay. maqribkii roob ayaa soo socda, kadibna baalbiyadooda ayay dibadda dhigteen si ay roobka u sugaan. Kim waxay ogaatay in dhammaan dhismayaasha wiilka ku xeeran oo dhan in dhammaantood zombiye ay joogaan. sahayada cuntada uu haystaana marba way sii yaraanaysay. waxa uuna go'aansaday in wax badan uu raadiyo. habeenkii ayuuna istuuduubay, waxa uuna si aayar ah uga soo baxay dhismaha. waxa uuna helay furayaasha qof dariskiisa ahaa oo uu bilaabay inuu dhismaha ku-xiga uu galo. gudaha qof ayaa jiifay. markiiba kab ayuu ku tijaabiyey, balse wax falcelinah kama helin. talaagada ayuu furay, halkaasoo cunto badan uu ka helay. wuxuuna bilaabay in dhammaan cuntada uu soo urursado. intii uu ku dhawaa inuu baxo waxa uu go'aansaday inuu hubiyo qofkaasi, balse waa meyd. zombi kale ayaa gadaal ka soo weeraray. markiiba meydkii ayuu iskaga dhigay oo uu nasiib u yeeshay inuu meesha ka cararo, qolkiisiina kusoo laabto. habeenkii cuntadii ayuu soo qaatay, wuxuuna bilaabay inuu cuno qayb ka mid a. qaybtii kalena inantii ayuu u gudbiyey. subaxdii ayuuna inantii cod ka helay oo ay uga mahad celisay cuntada. maqalka codkeeda bini'aadamtinimadii ayaa dib uga soo laabatay. saaxiibtinimadoodii ayaa sii kordhaysay, iyagoo weliba had iyo habeen wada xidhiidhi jiray. waxayna garwaaqsadeen in hadda wax rabaha uusan jirin. markii dambe zombiyadii ayaa bilaabay in Kim dhismaheedii oo dhan kusoo wareegsadaan. iyadana shanqadha ayay iska ilaalinaysay, iyadoo faash soo qaadanaysa ay si lama filaana miiska u riixday. zombiyadiina waxay dareemeen in qaybahan lagu jiro oo ay yimaadeen albaabka kale. iyagoo ku dhow inay hadda yimaadaan, Kim ayaa ka dalbaday nambarka guriga ku xiga taleefankiisa. taleefankaas ayuuna garaacay. zombiyadii ayuuna dhinaca kale u leexiyey, iyana aad ayay uga mahad celisay kusoo degista fikradda degdeg ah ee uu ku badbaadiyey. cuntadoodii ayaa sii dhammaanaysay. joogista halkani khatar weyn ayay ku tahay oo ay go'aansadeen inay hadda halkani ka tagaan. dhammaan alabtoodii ayay xidhxidheen. Kim ayaana marka hore waxay rabtaa inay Chan Woo u timaado. xadhiggii ayay isticmaashay oo ay dhulka kusoo degtay. dhowr zombi ayaana ka hor yimi, si adag ayayna iskaga difaacday. Chan Woo waa uu ka naxay, isagoo garwaaqsaday inay gabadhani karti badan tahay. xataa baaskoolada ayay heshay, mid ku dhow isagu inuu cunana. Chan Woo ayaa yimid oo sidii ku badbaadiyey. dhismaha ayayna sidii kusoo galeen. qaybta wiishka ayay yimaadeen oo ay tegeen dabaqa 8. si aamusnaan leh ayay isku dayeen inay albaabada mid mid ugu furaan, ilaa markii dambe saambi gadaal ka soo muuqday, laakiin raxan ayaa ka dambaysay. Kim waxay isku dayeysay in albaabada ay furto, halka Channa uu xanibay saambiyada. isla mar ahaantaana nin dahsoon ayaa albaabka ka furay oo labadaadiiba u ogolaaday inay gudaha soo galaan. ninkaasi wuu feejignaa, wuxuuna u muuqday bini'aadan caadi ah. 3 koob oo biyo ayuu u shubay. labadooda waa ay shaksnaayeen. markii u horreysay isaga ayaa cabay biyaha. aakhirkii iyaguna waa ay ku dhiiradeen inay si taxadir leh u cabaan biyahaas. kadib markay ogaadeen inuu qof caadiya yahay, waa ay gaajisnaayeen. ta ayuuna u keenay. ninkani wuxuu u sheegay inuu idaacadda ka maqlay in kooxda samatabixintu ay soo socoto. wejiyadooda ayay farxad hadda ka muuqataa. ugu dambayntii Kim waxay dareetay inay halkan wax ka qaldan yihiin, waayo meesha waxay ku aragtay sawiraanta ninka qoyskiisa, balse halkani keligii ayaa ku nool. Chan Woo waa uu dhacay, iyadoo dareentay in ninkan uu sakhraamiyey. iyadiina sidoo kale miirbeel ayay noqotay. kadib waxa uu bilaabay inuu ninkii odayga ahaa inuu Kim jiido. Kim waa ay naxday markay gudaha ku aragtay ninkani xaaskiisa oo isbedeshay oo hadda xidhxidhan. ninkani xaaskiisa aad ayuu u jeclaa, mana uusan rabin inuu hadda dilo, oo wuxuu go'aansaday inuu hadda dadka ku quudiyo maadaama gaajo daran haysay. qolkaas ayuu ku xidhay. Kim ayaana gudaha qolka loo geliyey. Kim waxay bilowday inay aad u qayliso. Chan Woo ayaa kacay oo ninkii qori ku qabtay oo ku amray inuu iska fasaxo, laakiinse markiiba xadhigga ayuu sii daayey. halka Chan Woo uu dagaalamayay inuu xadhigga qabto, laakiin nasiib xumo kama gaadhin. albaabka ayuuna isku dayay inuu furo, ilaa markii dambe ninkii uu dareemay inay shanqadhii istaagtay. wuxuuna moodayay in xaaskiisu cuntadii cuntay. markii uu furayba markiiba zombiga ayaa soo weerartay. isaga xaaskiisii ayaana meesha ku cuntay. gabadhu waa ay badbaaday oo ay iska difaacday. isagu aad ayuu xaaskiisa ugu faraxsanaa. labadoodii waxay bilaabeen inay meesha ku dileen. rasaasta dhacdayna dhammaan zombiyadii kale oo dhan ayaa maqlay oo dhinaca dhismaha kusoo wajahaan. Kim iyo Chan Woo labadoodiiba waa isdhiibeen, waxayna go'aansadeen inay halkan isku soo afjaraan oo ay isdilaan labadoodiba. qaylo dheer ayay bannaanka
ka maqleen waa diyaaradaha samata bixinka oo meeshan u soo dhawaaday. rajadoodii ayaa dib ugu soo noqotay iyagoo go'aan ku gaadhay inay tagaan dhismaha meesha ugu sarreysa. Chan Wu waxa uu bilaabay inuu zombiyada iska riixo dhismaha ugu sarreysa ayay inay yimaadeen oo ay albaabka iska giijiyeen, laakiin markiiba albaabka si fudud ayay kusoo jabiyeen iyagoo khatar badan ay u muuqato. markiiba qolyaha gargaarka degdega ayaa yimaaday, rasaas badan ayaana lagu furay zambiyadii, labadoodiina ugu dambeyn sidaas ayaa lagu badbaadiyey. isla markiiba khadka ayay heleen iyagoo weliba asxaabtooda u dirayaan fariinta badbaadada. halkani ayuu ku dhammaaday filimkeenii. haddii aad rabto inaad la socoto filmaanta aanu maalin walba soo gelino halkani, fadlan subscribe noo saar. mahadsanid.